بسم الله الرحمن الرحيم مهد مجد الله بالوان مجنتي نهاي نحاريسي نبتقلي إرجعي فرقان يودجون ورسولك إني محمد كركي هذا حسن جامع وي قرمدان aan idin soo jeedinayo waxaan ka soo dheegtay dhiganaha way arag ee uu dhigaalay Ilaahay cimrigiisa ha raajiye Cabdul Xaaji waa dhigane uu ku soo ururiyay wixii dux iyo murti uu dhaqankeenu lahaa oo uu ka soo wariyay odayadii u soo joogay odayada uu ku wareysan jiray barnaamij radio Djibouti ka bixi jiray oo dhaqan aha qormadan magaceedu waa qaybaha bulshada aan idin dul mara markaa odayadii xeerka dhigay waxay dadka u qaybiyeen buu yiri 10 qaybood waa marka laga eego dhinaca kaalmaha ay bulshada kaga jiraan 10kaas oo kala ah 1 sadarhaye 2 sargooyi 3 sarhaye 4 sedhaye 5 sogorla joog 6 sebi 7 saab 8 sanku jiif 9 saraya umur 10 samir iyo iimaan 10ka ay bulshadu u qaybsan tahay ee ay odayadii xeerka dhigay tilmaameen ayaan mid u laqbaynaynaa 1 sadarhaye waa wadaadka ama sheekha bulshada cilmiga bara isla markaana ah macalinka ardayda quraanka u dhiga wixii cilmiga diinta ku saabsan isaga la weydiiyaa waxa kale oo la yiraahdo wadaadku waa xaraf la joog ardayda diinta baranaysa qudhoodu buu yiri waa sadarhaye sargooyi waa odaygii labaad ama waa ninkii labaad waa odayga garta u kala naqa bulshada waxa kale oo la yiraahdo gargooyi xeer la joog soof eeg geed joog iyo subaga intaas oo magacyo ahna waa loo yaqaan bay yiraahdeen waa ninka la yiraahdo shirgeed ma buuxshay ninba buuxsha waa ninka markay meel dhibaato ka soo socoto dibad iyo gudaba yiraahdo war waxba halka ka soo socda ee ha laga digtoonaado ama ha laga hortago waa nin wanaaga iyo nabadda ku xeel dheer oo marka dadka dhexdiisa xurgufi ka dhalataba subaga mariya oo markaaba bogsiiya ninkaaba sargooye la yiraahdo bay odayadu yiraahdeen gudub 3 sarhaye waxa weeye ninka dad iyo duunyaba daafaca waxa kale oo la yiraahdo mayalhaye gaashaanhaye samayhaye iyo daafaca odayga sargooye haduuna haysan ninkan la yiraahdo sarhaye waa awr dabala baa la yiri waa ninka uu ku caarto awr aan dabalahayn ma caarto waxa weeye awrtu markay qooqan tahay dabada dheer ee ay leeyihiin bay iskaga kaadidaa oo shoofayday ku shaxdaa dhabarkay ku madoobaysaa oo inuu lab yahay baa lagu gartaa bay yiraahdeen odayguna gar ma galo mana baano ergana ma diro mana caarto haduu dhabarkiisa ku ogeyn sarhaye kolkay arini adkaato ee waana la diido ee xeer la diido ee xasuus la diido ee ninkii garta laga helay uu xoog sheegto ee uu geeyira oo ka dhigan si qayxan baan u diiday ayuu sargooyuhu adeegsadaa qodobkii ahaa katabura oo ka dhigan xeerku xoog buu wax kaaga qaban markaas sarhaye amar la siiyaa oo ninkii geelaha geed quraan lagu xidhaa sarhaye waa ninka lagu degan yahay ee lagu seexdo haduuna jirin nabad ma jirto hurda ma jirto raaxana ma jirto bay yiraahdeen gudub 4 sadhaye waa ninka xoolaha badan ee duunya Ilaahay ku manaystay waa ninka maalinta ay hadal u baahnayn ee ay u baahan tahay odayada la garab taagan wixii baahi jirta oo dhan 5 sogor la joog waa ninka xoolaha raaca ee dhaqaaleeya xoolo la joogna waa la yiraahdo oo waa geel jirka lo jirka iyo ari jirka 6 sebi waa ubadka yaryar ee aan qaangaarka ahayn una baahan dhaqaaleyn waxbarid edbin iyo ka warhayn joogto ah way odayadu yiraahdeen 7 saab waa dumarka oo ah hooyadii laga beermay ee wax dhalaysay waxna dhaqaaleynaysay 8 sanku jiif waa waayeelka da'da ah ee aan reerka duleedkiisa dhaafin ee wax xanaaneeyo u baahan jiifana waa la yiraahdaa 9 saraya umur waa ninka sharmaahee aan dadka shay wanaagsan ku soo biirin waa ninka kolba meel fidneeya ee dagaal uun u taagan
waa nin isku dir iyo u kala sheekayn uun goor walba ka shaqeeya. waa ninka saancad iyo digagub la taagan goor iyo ayaan. waxa kale oo la yidhaa sababa. 10 samir iyo iimaan. waa intii dhimatay oo allah looga hadhi way odayadu yidhaahdeen. halkaasaan ku soo afmeeraynaa qormadan magan allah iyo noomar kale.